I know عقلينا واسمه وحان أهين كمتشرتو زيرو باتين كلين واحد كيف فكر إسمه واسمه السيسار ناكتب مع الناس كسوق بتي نلاش هالكاس كوسا أفشرنتي هم أين على هيست محل ديجري إيش كدو حلين بداروين كرت لكن وحبة كمان فهميه هل حبة كمان فهمي that's okay but at the end of the day واحد عيال كيريرة ما أنت teenage كأي رجس ديت بنك سقالي تمك سوق جارية يلا ما تنكا وحن بيدقي سنة يا رجع ندع سوتا raggaan dhan dacasay wataan brother okay I know kulligin guskaad gacanta ku wadataan lan ee tuugsiga ah ee shaxaadka ah ee maxaa la dhihi jiray adoon waxba awoodin aad naag u huraysid noloshaada inaad ka baxdid baan rabaa young man okay waxaan rabaa inaad mindsetkaaga saxdid iyo qaabka aad u fakaraysid like-iska socdaan okay barnaamijku bilaabanaya sida ugu dhaqsaha badan like-iska ha gaaraan 1 milyan sida ugu dhaqsaha badan okay basically 1 milyan ka yar like kuma bilaabi karayo barnaamijka maraan suud qabo maalmahan t-shirt ka qabo waa iska okay maalmahaas waxa waa broke boy baan u ekay maalmahaas it's okay laakiin maalinka odaygu suudkiisa uu soo xirto waxa waaye maalinkaas waa kala xishoonayna okay like-iskana socdaan like-iskana let's go like-iskana socdaan okay so waxaan arkay heesta baan arkay marka daraad maxaa la dhihi jiray qof baa igu soo taaggareeyay shubooyinkii oo dhan iyo naagihii daalanaay oo dhan waxa waaye waxay taagan xaliyaan ku xumeynaa horta heesta maxay ku bilaabanaysaa mataqaana adiga qosol ay iga dhammaato wallahi heesta waxay ku bilaabanaysaa anaa ku waso just listen brother yeah ideology listen هذا ماشان JB ما هو سيا way ku bilaabanaysaa this is the future ka nimanka aynu rabno inaynu dhisno ee ay niman noqdaan ee ay maxaa la dhihi jiray nolosha meel ka gaaraan macna yeeshaan okay waa nimankan markaas naag waxa loogu heesayaa xaliyaan ku xumayna abaya adiga wax ku siina adeesta way dheertay hadda maxaa la dhihi jiray arkaya listen let's go fiirina okay welcome soda wow xaafada markaas soo qashdi maaw kala salaamkii ku dala hello raggaan dacasay wataan brother okay dacasay wataan tintaa ku baxday cidiyaha way ku baxay okay waxay ka fikirayaan waa ma kuwasa naagaana loo heesooya raggaa naagay u heesayaan yaa la soco ku xisaabtan ya waxaad dhegaysanaysaan waa waxan waa okay waxaanu rabnaa inaynu bedelno bulshadeena cidda ay u aragto hormuudka iyo cidda ay u aragto ciyaalkan ciyaal yaryar waa laakiin cidda ay u aragto maxaa la dhihi jiray hormuudka iyo role modelka ama tusaalaha okay I know kulligin guskaad gacanta ku wadataan I know caqligiina wasmo waxaan ahayn kuma jirto zero baatiin kulligin waxaad ka fakaraysaa waa wasmo isiisaar naagta maanaas ka soo qabtay nolosha halkaas ku soo afjarantay that's all brother okay so waxaad u baahan tahay inaad fahanto waxay tahay marka koobaad si aad wax u noqotid oo wiilnimadan uga baxdid waa inaad mindsetkaaga inaad saxdid waa okay mindsetkaaga inaad saxdid waa moderatorada waad ku jirtaa ma rajeynaya okay waa cadaynaya ninka inuu Soomaaliya la socaya waxaan ku dhaaran karaa raggan heestan markay duubayeen inaysan qaarkood cadaysanin waan ku dhaaran karayaa inaysan qaarkood soo cadaysanin in the morning brother waan ku dhaaran karayaa this is ragga aynu rabno waaye inay dhismaan ragga aynu rabno inay macno sameeyaan waaye anaa kuwa soo okay kadib naag baa loogu heesayaa waxaan ku geynayaa maxaa la dhihi jiray meelblaayo adaan wax kasta ku siinayaa dacas baadna wadataa motherfucker dacas baad wadataa you know
raggan aan t-shirtka iyo surwaalka iska bedelin ee dhahaya maxaa la dhihi jiray naagaha Soomaalida cirkaa kusoo marinaya maxaa la dhahaa rinji. This is waxay noqotay hal scriptio la raaco in adoo daalan oo ebara noloshu wax ay ka wareersan tahay waxba aysan ku toosin inaad naag burusid marka lagu weydiiyo maxaa la dhihi jiray ii sheeg maxaad samaynaysaana waxa ku xumayna xaliya ku xumayna laakiin hadda naagtan maqaayad geysid laba xabo chicken haday cunto saaxiibka baad wacaysaa saaxiib xataa malihid oo wax haysta laakiin waxaad wacaysaa somehow qof baad wacaysaa si $10 $20 lagu soo diro ama lacagta break time ka lagu siiyad iyada la qaybsanaysaa leedahay jacaylkeena ka weyn hoo qaado $3 anigana 3 ii reeb. Okay, let's see adagaysan likes ka socdaan okay likes ka socdaan moderatorada comments ka la xiro ciyaara ku jirtaan likes ka ma soconayaan hadii kale okay hala xiro commentigan la xiro gubata waa diraysa meesha okay soo gambo baby kuwa kale ka wada gambo okay so basically wuxuu leeyahay aniga shiidaan ahay axsaan ii sameey please khadiijo axsaan ninka uu tugsanayo naagta baby soo gambo no hadii suudkaagu ku diyaarsan yahay shaxdan aad fahansantay uma baahnid inaad naag ku dhahdo soo gambo iyagaa soo gambanaya iyagaa maxaa la dhihi jiray si toos oo u soo imaanaya dhinacaaga you don't need brother laakiin wax ma fahansanid value wax qiimo aad leedahay ma jirto waxaad aaminsan tahay ideooyinkii iyo fikradihii ay ka gadeen hindiga iyo maskaxda maartay heesaha ay ka gadeen baad aaminsan tahay waxaad u malaysaa noloshu inay tahay kaliya inaad naagtan si isaar la samaysid jacaylkan iyo waxaan ay run yihiin waxaan oo dhan waa been filmada bas bay noloshaasi ka jirtaa noloshaasi sida caadiga uma jirto adoo daalan shiida shaqo la'aana guriga hooyada jooga maxaa la dhahaa waxba aan haynin xirfad aan lahayn waxba aysan nolosha kugu soconin naag salaamu calaykum ku dhahaysa ma jirto ma lagaa daadsanaya lacagteeda hooyada ku siisay yes oo lagaa daadsanaya miyay ku rabtaa maya big boss iskay rabtaa adiga maaha so iyadoo big boss is arkaysa sagamba baby sagamba t-shirt cadaaday wataan waxay naag ugu heesayaan halkee ku geeyaa holiday brother guri kira ma awoodid why ciyaalkan yar ay beenta ugu sheegayaan you can't even afford guri kira and you talking about naagina holiday geysid heesta ciwaankeeda waa xaliya bidaar weyn come on at least waxbaad isku dayday laakiin meesha khaldanaa wada socotaan waxa ku jira waxaan holiday you talking about holiday heesta meesha lagu shoot gareeyay adiga waxaad xiran tahayna hadii la isku dardaro $60 ma gaarayaan are you mad brother fam are you mad ninka maruu raadin oo la socaya thank you okay waa tara marka meesha aan tagi karo la'aanta scriptio ay ka wada siman yihiin dhammaan heesaha Soomaalida and this is one of the reasons hees Soomaaliya why adiga la'aanta meel ma tagi karayo because wax kale ma haysidood nolosha wax kale oo kaaga socda ma jirto in aadna